إخواني لحظات كان يدغضها أنه كفى إلي سنة نفتي له يورا لها مصر قصوغا يقوى عدكي وقاري وحان نقول نستحينا يا قلوبته هيا جنته ذا إن لغا شقيه إلهي سبحانه وتعالى أرنكو أصو ديري رسوشا كتبتنا أصو دجيي أرنك أقوي وحوي إن قلوبته الهجاجي أو قلوبته اللي الله سبحانه وتعالى قلبك جركو إذن متك ما مروه قلبك هدو هجاجنا قفك وهجاجي قلبك هدو فسادنا قفك إذن وفسادنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحا أجري إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رسولك صلوات الله والسلام عليه وحورا قفك بني آدم كأه قلبي سوحا كسوغن عد وحيرو للروي كرافك اللي كروي عد هدي با كسوغن عد كهدو هغاغو وحا هغاغا يجركو إذن قفك جركي سو دو هغاغا عد كهدو هغاغو عد كهدو فسادو جركو إذن نو فسادو عد كهوحا ويا أيها النبي عليه الصلاة والسلام قلبي غفق واحد قلبي قفك هدو هجاجيه مرك شركي سو إدل وهجاجيه نفط مرك هجاجين تيدنا إلهي سبحانه وتعالى ومد وفري أمانين قفك نفتي سا هجاجيه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وحال ليبان قفك النفتي الظهيرة وحانه قفك النفتي سوى سقيه كجوك سنة نفتا مركا waxaa hagaajinaya waa qalbiga qofka dadaal walba inuu ku bixiyo hagaajintiisa laga doonayo hagaajinta qalbiga marka dhowr arrin buu ku hagaagaya in qofka Ilaahay uu ka baqdo ogaado Ilaahay inuu daalacanayo Ilaahay inuu og yahay waxa uu muujin iyo waxa uu qarinayo الله سبحانه وتعالى وحو يقول إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وحد كتر هذا النبي محمد الله سبحانه وتعالى وحو ورنيا هدي آد قرسان وحلا به نكجر أما آد مجسان إلهي وأولي مربا مركا قلبي قال هدو إلهي أوليها waxa hooseeya iyo waxa dadka u muujinaysa haduu waa inaad qalbigaada hagaajiso aad Ilaahay uga baqato oo qalbi saliim ah aad qalbigaada ka dhigto Allah subhanahu wa ta'ala sidoo kale quraanka wuxuu ku yiri ya'lamu kha'inata al-a'yun wama tukhfi as-sudur Ilaahay waa og yahay jalla wa ala isha wax qiyaamayso khiyaanada badan laabaha wax ku qarsoon Ilaahay waa og هذا إنه وحق قيامه أنت أفكي حيرته إلهي وكؤوني لابتا وداد حمان قريصه إلهي وأوبيه سبحانه وتعالى مركتا إن لحسوس وأرمها قلبك الوهجاج سيدا قالوا إن الحسوس موقف كقيامه وحو البو قلبك الوقرين جري إن بناك الله صديقه الله وحوه سبحانه وتعالى فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور marka waa inaad ogaato qabuurtu waxa ku jira Ilaahay soo saari doono banaankan oo soo dhigi doono maalinka qiyaamaha waxa laabta ku jira Allah subhanahu wa ta'ala sidoo kale wuxuu oran yawma tubla as-sara'ir maalin banaanka la keenayo la muujinayo wax walba la saliisan jiro
waxba laabta ku jiray maalna banaanka la keenaya haddii xumaan qalbiga kugu jirta markaa maxsharka cadiimka iyo mowqifka argagaxa badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu fadeexay qalbigaada wanaag hadduu ku jirayna maalinka hadde waa maalinka farxaddaada ay tahay tawxiidka iimaanka jacaylka ilaahay aada jeceshahay qalbigaada hadduu ku jiray maalinka waa maalinkaad liibaantay waa nabiyullaahi ibraahim calayhi assalaam markuu ilaahay baryayey subxaanahu wa tacaala rabbi jalla wacalaa qur-aankiisa uga warramo wuxuu odhanaya walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaahayow hayhoojin maalinka addoomaka la soo saaray ilahayu hayhoojin maalinkaas ilahayu hay fadeexayn maalin aysan anfacayn maal iyo wiilo la dhalo maalin aysan anfacayn ilaa qofka ilaahay ula yimid mooyaane qalbi saliim ahoo nabadgala qalbigaa saliimkaa culimmada markay ka warramayaan waxay odhanayaan waa qalbi ka nabadgala shirkiga xumaanta iyo macaasida istustuska ee ilaahay ku xidhnaa wey daacada rabbina ku dadaalay way yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim quluubteena marka walaalayaal aan hagaajin ilahay wuxuu daalacanaya quluubtooda saxiixa waxaa ku sugan xadiid laga wariyey saxaabiga la yihahdo abu hurayra radi allahu canhu saxiix muslimka ayuu ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ina allaha laa yanduru ila ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum allah subxaanahu wa tacaala ma eegayo jirkiina iyo muuqaalkiina hase yeeshee allah subxaanahu wa tacaala wuxuu eegayahay quluubta annaga hadda awoodda waxaan siinaa jirka in la qurxiyo cunto fiicana la cunaa dheeraha iyo kalluunka iyo si dhamano fiican loo yeesho qofka isku raacsanaada jirkiisa muuqaalkaa la hagaajiyaa laakiin quluubta ilaa cidda ilahay u raxmada mooyaane inta danaysa aada u yarta ilaahayna ma danaynaayo jirka oo eegi maayo iyo muuqaalka ee qalbiga waa ilahay wuxuu eegaya subxaanahu wa tacaala salaadda waa la wada tukadaa qof walba 4 ragcoo tukanaya hadday tahay duhur hadday tahay casr haddii ay tahay cisha hadday tahay maqrib 3 ragco hadday tahay fajrigii 2 ragco jamaacada waa la wada imaanaya waa la wada tukanaya laakiin meel lagu kala saaraya jirta qulubtooda ninna wuxuu u tukanaa oo raggii odayaasha kula ekaa iyo asaaga masaajidkii wada aadaynay aad caadi ka tahay dhaqani ka tahay bal la soo tuko salaaddu waa iska xiraa soo fakaraaye asagoo maaragtay ictinaa weyn aan siinin waxaa laga yaaba tukaaman uu leeyahay ganacsi uu leeyahay inuu ku dhex xisaabsaa salaadda oo ku dhex fakaraayo iyo hoolihii iyo gurigii iyo maamul uu ku dhex wado ninna wuxuu og yahay ilaahay inuu ku waajib yahay fardu cayn ay ku tahay qiraa'adu ku baraarugaya adkaartu ku baraarugaya oo ku fakaraya salaaddii khushuuc ku tukanaya arkaanteydii iyo waajibaadkeedii shuruuddeeda kale maaragtay ogaaya marka qalbigu ilahay kala saaraya midna caado u tukaday midna cibaado u tukaday annaga say dusha sare maxaa nooga muuqda maa sha allah jamaacadan aad ku faraha badan oo tukatay laakiin waa la kala saaray dadka oga qulubtaa loo kala saaraya marka quluubteena walaalayaal aan hagaajinno xumaanoo idil aan ka hagaajinno dunuubta waxaa ugu weyn shirkiga qalbiga laga ilaaliyo shirkiga ilahay keyrka in lagu xiro in laga ilaaliyo in laga ilaaliyo shirkiga kaa waa akbare kiisa asqarkaayo waa istustuska cibaado markii la gudanayo in dadka la istuso oo laiska muujiyo si lagu ammaano qalbiga in laga ilaaliyo in quluubta laga ilaaliyo shahwaadka macaasida sida haysaho quluubta ay jeclaadaan qalbi hays jeclaada qur-aan ma jeclaado
qalbi fitanta iyo shahwaadka iyo dumarka iyo holaha ku hoolanna cibaadada uga soo adagta macaasida qulubta marka laga nadiifiyo cibaadadii khayrka waa galaya ilaahi subhanahu wa ta'ala dadkii khayrka marka uga warramay wuxuu yiri in ya'lamu Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran ilaahi marka qulubtiina wanaag ku ogaado ayuu wanaag idsiina qalbigaada hagaaji adoonka Allah qalbigaada hagaaji wanaaji ilaahi wanaag waa ku siinaya imaam Shaafi'i waxa laga soo guuriyay waxa kamid ah hadala saameyn badan laga soo guuriyay شكوت إلى وكيع فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي وكيع وشقيس وحن أغشب وضويري حفظي وأدعو لصرحا علماء أدعو حودنا يعني حفظينت إلا حفظ علمي لا سواه رأي كتابك الله sidoo kale sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam in la xafido la qaybo marka wuxuu yiri xifdiga marka wax xifdiga waa hilmaamayaayo xifdiga xunaan uga sheegtay sheekhi wakiicaha markaas wuxuu igula taliyay inaan macaasida ka tago faarshadani ila tarki almacaasi macaasidi xumaanta waqala alam wuxuu yiri ogaaw bi anna alilm nur ilmi wa iftiin qalbi wa qara iftiin qalbi karawo ونور الله لا يؤتاه عاصي نورك إلهنا لمصير من عاصي إلهك وعاصي خدارت إن القرآن كبرته خدارت سنة النبي إن حنبرته أهل خير إن نقطة خدارت قلبي قد هجاج وإلهي عبسيدي سكود ذال آيات في أنصار الشيخنا روح الصناعة إلهي يقول واتقوا الله ويعلمكم الله إلهي كبر سبحانه وتعالى إلهي وإذ البرايا marka ikhwaani fillah qulubtayna aan hagaajin gaalada markii laga waramay waxa heerka gaalnimada gaarsiiyay naarna ay ku mutaystay waa qalbigooda wasaqoobay waa qalbiga dambiga soo u galaayo wasaqoobay dhagaxo noqdo marka wuxuu noqdo marka hadii loo digaa iyo hadaan loo digay hadii la wacdina iyo hadaan la wacdin mid iskaga mid ah وأن خشوعي الله حكير سبحانه وتعالى قال له كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كآلي اسكبت دايم وحا قلبي ودين مذوبي بر مذوب كاللي وحي كسبرين وحمانا ويوصل السقال ماذا وافقوا هذا مكوك الدايم سواء علي ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله كير وحا اسكبت إذا إنا أدكتو وانسو إيه إن أقول دي النبي محمد ومر من عيان حق قلبي إياه والسخوه فضال عليهم الأمر فقصد قلوبهم مددي أقول دائرات القلوب تودي أدرح نقط ويقلش واحد قال يقير ملا واحد فعاي ملا مرك قلبي وي رسولك عليه الصلاة والسلام حاولي فتنت قلوبت الله صوبا لقايا حديث دير وقول الرمي فتنت wuxuu yiri qulubtu waa la soo bandhigaa cuudan macnaha dirinta waa la yaqaan awaya ma ka koomata Soomaa la tidcayo la suubiye la dabay saasoo kale ay qulubta ugu soo bandhigmaysa fikanta markaas oo sharxa qalbiga cabaayay qalbiga fi nuuraayay qofka marka hor dhibic ku bilaabmay markuu Ilaahay u soo laabto oo Ilaahay ku xilman dhibic waa tirmay hadduu xumaanta sii wadaan dhibicdu waa ballaarani dhibicdu waa sii ballaarani dhibicdu waa weynaani ilaa marka dambe qofka munkarka uu inkiri waayo oo xumaantii caadi agtiisa ay ka noqoto zamankan aan ku jirnaa wax nooga baahi badan malahan walaalaha qulubta inaan hagaajino fidno dhan waana loo fududay moobeelaadkeena fidnadii ku jirtaa markaa furtaba yaa adduunka wax ka dhacayna la socota xumaan iyo fasaad oo dilna waa la soo dhaweeyay inta badan waxa wajigaaga ku soo dhaca marka furta ayaga waa commentiga leeg waxa badan xumaanta la saaray Soomaa yaa wadaadadii iyo wax taawana malaan barahoodii bulshada waa dambe in adiga raadisa maahan laakiin markaad mobilka furto waxa koo indhaada qabana xumaantii haddii aan indhaha laga celin oo aan qulubta laga celin oo la israaciyay fasaadka
fasaadku waa iska soconaya qalbigii madowgiisa waa weynaanaya marka allah cibaad allah naftayda iyo walaalahayga waxaan kula dardaarmayaa inaan quluubta hagaajinteeda aan ku dadaalno waxyaabaha quluubta lagu hagaajiyo waxaa ka mid ah ducada rabbi subxaanahu wa tacaala in ilaahay la baryo in ilaahay qalbiga diinka uu ku sugo ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd allaahumma yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik allaha quluubta rogrogow qalbigayga ku sug diinkaada waa ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam mid walboo naga mid ah marka ducada aysan imaamina ku ducayso allahuma yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ahlu iimaanka markuu ilaahay uga warramayay fii suurati aali cimraan maxay odhanayeen rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxma inaka anta alwahaab ilaahayo quluubteena ha iirinin oo xaqa ha ka leexinin markaad hanuunisay kadib ilaahayo agtaada nooga hibay naxariis iyo rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxma inaka anta alwahaab allah waxaa taha adiga allihii bixinta badnaa hibaynta badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi quluubta waxay ku sugantaha bayna asaabici araxmaan allah raxmaankaa fadhiisa dhexdeeda yuqallibuhaa kayfa yashaa ilaahay soo doona asaa u rogroga marka ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiiso inuu qalbigaada sugo nebi yuusuf ilaahay markuu ka warramayay fii aakhiri xayaatihi maraaxil badanuu marayay qisada nebi yuusuf waa garanaysaan tafsirku aydi kusoo martay ya mar walaalihii oo la kulmay oo fitan kala kulmay ay dhibaateeyeen ilaa ceyl ku riday markuu ayay ka soo badbaaday ninkii madaxda ahaa xaaskiisii inta caashaqday ayadiina ay fidnaysay oo dhibaato badan u geysato xabsi soo maray waxaasoo dhan ilahay waa ka soo badbaadiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala boqortinimo u dhiibay maamulkii dhulkoo qabtay khazaa'in alard walaalihiisii dhibaateeyaa ilaahay u keenay macal aabihii hooyadii iyo walaalkiisii bahda kale ahaa maarka isaga ku bahda ahaa fii aakhiri xayaatii marka muxuu yidhi ilaahayow mulki waad isiisay waxaadna i bartay ta'wiil axaadiid riyooyinkiisa loo fasay ducadiis waxaa ka mid ahayd tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin fii aakhiri xayaati ilaahayow i oofso anoo muslim ah ilahayow islaamka igu oofso saalixiintana allow iyo haleeshii nolosha ugu fiican in lagu soo gabagabeeyo nolosha oo ilahay lagula kulmana waa taa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubta hanoo hagaajiyo allah jala wacalaa jaamican barakaysan iyo waqtigaan barakaysan noo kulmiyey jannatu naciim ilaahay noogu kulmiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa mootada muslimiinta inaga hormartay ilahay inuu raxmado qubuurta ilaahay u waasiciyo ilaahay subxaanahu wa tacala annagana xaqan nagu sugo xaqana ilaahay nagu oofsado bisha ramadaan ay barakaysanna ilaahay hana gaarsiiyo kuwii qayrkeeda ka faa'iidaystan ilaahay naga yeelo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk